waxaan garaacayo ma aha dad oo ciidana iyo military ma waa shacabka Soomaaliyeed waa nacayb kooxda argixisada ay u qabteen in u garaacaan lama amnigeenu ku sugan intii wax ka gaarin garabka dawladdiisa ilaa lugta qof hubaysan ahayd miyaa was dagaalaysiin ma dagaalin mana hubaysnayn dhalinyaro ciyaalka xaafadda ah ayaa qabtay Xasan Cali Iftiin Buulla Gacmi oo baxsad ka ahaa ciidanka kadib markii uu qarxiyay miino bacmadow uu ku waday oo uu dhigay bar ay gaadiidku ku hubinayeen ciidanka Booliisiya Militaro kuna taala jaamacadda Gaheer ee degmada Daynile ciidankii ku raad joogay ee dhagarta uu la damacsanaa ayaana badbaadiyay eedeysanaha oo ay jir dilayeen kooxdii qabatay marxuum Abuukar Cali Cabdinaasir oo 17 sano jir ahaa ayaa qaraxaasi ku dhintay halka uu ku dhaawacmay dable xoogga Yuusuf Shire Barow falka ayaana dhacay habeen Ramadaan ah oo ku taariikhaysan 22 bishii saddexaad ee sanadkan xilli afurka kadib ah eedeysane Xasan Cali Iftiin xilli Ramadaan ah oo Ramadaanka hadda la soo dhaafay ah 19 bishii saddexaad 2024 xilliga bacda afur ayaa waxa lagu arkay asagoo miino wado isla markaana taagan goob ciidanka Booliisiya Militaro control u aheedo baabuurta iyo mootooyinka iyo ku jeekami jireen ayuu taagnaa degmada Daynile gaar ahaan jaamacadda Gaheer eedeysanaha miinada asagoo wado ayaa lagu qabtay askari ciidankii meeshaas ku qornaa kamid ah ayaa arkay istaagu yiri ninkan indhaha markay isku dhufteenba horo ka cararay inta askarigu uu ciirsanayo xabadda uu ku ridaayay eedeysanaha qaraxiyo taabtay qaraxi meeshaas oo ka dhacay askari kale uu ku dhaawacmay qof shacab oo waliba wiil yar oo 17 jir ah oo farmashi u socdayna uu ku dhintay eedeysanaha waxa gacanta ku soo dhigay shacabka Soomaaliyeed marka qaraxa dhacay waa kufay markaan kufay ninka askarigan waa soo daba taagnaay waa markaan kugu kale meesha ka soo baxay iyagu waxay leeyihiin ninkan shabaab waaye marka soo carartay si u dhacay lagu qabtay marka qaraxa dhacay aniga waa soo orday dadka meesha waa ka orday aniga waa orday saan orday markaan meel oo godgod oo kale ahayd waan ku kufay markaan kufay ninka askariga iyo dul taagan markaan dad kale meesha waa ka soo baxeen oo dhar shacab oo kale watan way qabteen markaan sida wuxuu dhahay ninkan askariga shabaab waaye kuwan kale markaan sidii ugu jir dilay yaa ku dilay kuwan oo hadda ninkan hadda shacab way dhahay oo way markaan waa jir dileen Xasan Buulla Gacmi ayaa argagixisada kaga